سلام كدب بلشدة كنا قبل كبنادر مانتي سوق صوب عي هالكان أكاديمية بوليسكا وأنا قم هذا علينا يا سيدا أي موجين درين كودا كوادن دعنا ذي حنون كبدنات كده على 6 ديسمبر إكس كنترول أفقوي ولا ليال مدن يال يمروين وحن إذا لو ذاك إن درين كينا وحن إذا كلامنا يا حنونك وعنو تاجنا هي هرمر كينا مالن أي هبين حد الله يدمو كما هرد دون كوا أبد كنا أي إذا مدن السداس أقلي وأنا كهذا أرنتاس أو حنري ما المينينه ما أوينينه وأنا أرسلين ولا ليال مدن يال يمروين بورك كذا شيء إذا كنت جنا واحد موجنا يا هذا ذي حنون كبدنيت أي كردين عدوج ومدة الصوماليات مالنتي سبتدا هيد إكس كنترول أفقوي وعبرتي وحكلا جرنا يا كو خلدان بالإله إذا كنت داري دقيسته waxay xumeynayaan diinkeena iyo caqiidadeena saliimka ah markaasay ka dhigayaan dhacdadii ex control afgooye iyo dhacdadii Zoobe ee tii ka dhacday gobolka Banaadir iyo dhacdooyinka kale la midka ah in diinteenu qabto oo saaso ay fiican tahay ay loo sheegayaan taasi ma saxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkeenan aqli wuu siiyay dhibaato badan ayayna soo joogeen dhibaataduna ayada garasho dheeraada keenta maantay waxaan hubaa inaan kala garan karno kan cadawgeena ah iyo kan saaxiibkeena waa maalintii aan si mid ah far mid ah aan ku tilmaami lahayn cadawgeena walaalayaal maantay waa maalin runtii ka astaysan maalmaha kale oo bulshada Soomaaliyeed ay xamili weyday adkaysan weyday baqtiga iyo dacayaadka iyo waxyaabaha aan la aqbali karin ee cala dheere oo hawdka kula jira oo soo faray ummadda Soomaaliyeed waxa la barjaraya oo la baabi'inayaa waa cududoodii waa dhaqaalahoodii waa aqoon-yahanadoodii waa dhalinyaradoodii kuwa sidaas ka shaqaynaya waa inaan u midowno waa inaan aragti mid ah ku wajahno intii koox naloo diri lahaa ee aan ku sugi lahayn gurigeenna ilaa qaraxa gurigeenna ugu keenayaane waa inaan annagu meesha ay joogaan ugu tagno haddii alle dadka wax bartay dadka hantida leh waxaan rabaa inaan u sheego kan wax bartay inuu dadka u sheego cadawgiisu inuu al-shabaab yahay inuusan ka bagan midka hantida haysta handadaadda lacagaha baadda ah looga qaadayo waa inuu iska diido waayo ubadkooda ayaa lagu baabi'inayaa waxaad adiga ogtahay maanta haddii laga qaado berrito ubadkaaga in lagu baabi'inayo in aad bixisaaho soo doqonnimo maaha arrintaas ayada ah waa arrin aan la aqbali karin waa arrin loo baahan yahay haddii aad baqi jirtay mar oo in dhiiridaada geesinimadaada in laga daba tago waxaa loo baahan yahay cid kasta oo ay baadi jireen kooxda maafiyada ah inay tiraahdo aniga baad damba maya inaan dhinto iyo inaan noolahay waa mid ilaahay u gaara laakiin baad aniga laygu baabi'inayo gurigayga lagu baabi'inayo ubadkayga lagu baabi'inayo ma bixinayo ganacsatada sidaas aan ka rabnaa haddii rabeedmo garabna waa ku siinayna waa kala shaqaynaynaa dadka wax bartay macallimiinta jaamacadaha macallimiinta dugsiyada qur'aanka iyo kuwa dugsiyada iskuulada waxaan ka rabnaa inay bulshada dhalinyarada inay wacyi geliyaan ayna kala baraan saaxiibkooda
iyo cadowgooda saaxiibkaa waxa ah marka aad liidato qofka wax ku taraya abwaan Soomaaliyeed wuxuu yiri ninka maalintaad tabar yareed timaha ku xiray iyo kii ku kala tuuray waad kala taqaanaa marka dadka Soomaaliyeed waa dad maantay fahmi kara yani cadowga iyo waxa uu geystay balse waa xilligii bulshadaanu ay dhiiri gelin lahaayeen ciidamada ka shaqeynaya difaacooda iyo amnigooda weelasha jooga difaacyada furimaha ee militariga ah haddayan hor fadhin lahayn kuwa sidaan u dhaqmaaya bal ka fikira maxaa dhici lahaa ma suura gasheen kuwa hadda wax baranaya inay wax bartaan ma suura gasheen bukaanka in la daweeyo ma suura gasheen in xafiisyada laga shaqeeyo adeegyada bulshada loo fuliyo ma suura gasheen waxa soo dhan way qarribi lahaayeen sidaa darteed si aan adduunka kale u baabi'iyo Soomaaliya shacabkeeda ay hortaagani aan horta asaga ka taqalluso ilaa adigu dhaaray wax la aqbali karo ma arintaas intay naga taqallusin waa inaan ka taqallusno dal walba wuxuu leeyahay dawlad maamul shaqeynaya mas'uuliyadka amniga mas'uuliyadka horumarka waad ogtiin cadowgan tabaryaradii iyo burburkii dalkeena ku dhacay ayaa u sahashay cadowga inay soo galaan oo ubadkeena ay khaldaan ay hooyadii iyo walaalihii iyo dalkooda ay ku soo diraan waxay gelin dheeraad ah ayaana la ka rabaa haddii alla idmo